waxay guursatay nin qaxooti ah shaqana ka codsaday way ka heer sarreysay balse waxa ay jeclaatay shakhsiyadiisa markii uu guursanayay gabadha cadaanka ah dadka Soomaaliyeed aad bay u cunsuriyadeeyeen waa la dhaliilay waxaana lagu tilmaamay mid dhalan rogaya jinsiyadda Soomaaliyeed ee bayaxawga ah dhag jalaq uma uusan siin ugu dambeynse maxay noqotay natiijadii uu ka gaaray gabadhii uu guursaday qoyska uu ka dhashay waxa ay ahaayeen kuwa fakhri daashaday yaraantiisiina waxa uu ku soo koray nolol adag oo fakhri hareeyay waxa uu si dirqi ah ku helay baasaboor iyo dalku gal uu ugu socdaalayay wadanka Ruushka isagoo oo doonayay in uu wadamada Yurub halkaas ka sii galo intii aysan dhicin dawladii kacaanka ee Soomaaliya ka jirtay waqtigaas wadanka Finland ayuu iska dhiibay waxayna ku qaateen si qaxootinimo ah waxa uu ku biray kaam qaxootiyeed isla markiiba waxa uu bilaabay inuu u shaqaysto isagoo iska diiday inuu cayr qaato waxa uu arkayay in ay tahay cayrta la qaadanayaa mid ceeb ah kaamkii uu ku jiray ayuu noqday subax kasta midka u hortoosa taasina waxa ay cajab gelisay madaxdii kaamka waxayna u bandhigeen inuu ka shaqeeyo kaamka waa uu aqbalay waxa uuna bilaabay inuu aroor kasta nadiifiyo kaamka aroorta hore sidoo kalena jikada cunto kariska ka qayb qaato halkaasina uu ka helo shaqo uu kala soo baxo biilkiisa waxa loo diray inuu barto luqadda Finishka ee Finland wuu diiday isaga oo ku adkaystay inuu rabo inuu shaqaysto gabadh shirkad uu shaqo u doontay gacanta ku haysay ee wareysanaysay ayuu u sheegay inuu fakhri ka soo cararay nolol aad u adagna wadankii Soomaaliya uga soo tagay way ilmaysay iyada oo ka naxday dhibkii uu soo maray waxayna siisay shaqo 6 bilood kadibna gabadhii shaqada siisay ayay isjeclaadeen sanad kadibna waa isguursadeen waxayna u dhashay 3 caruur ah xaaskiisu waxay ahayd mid garab taagan mar walba isaga kaliya ma ahee xitaa reerkii uu ka dhashay ayay caawin jirtay lacago ayay u diri jirtay aadna ay way uga warhaysay ugu dambeyn ganacsada Indhabuur waxa uu ku fakaray inuu galo ganacsiga isaga oo hindihiisu ahaa inuu abuuro shirkad dhisme oo weyn riyadaas ayuu ku taamayay hase ahaatee markii uu bilaabay shaqadii xaaskiisa ayuu waqti u waayay habeenkii xilli dambe ayuu guriga iman jiray kadibna waa iska seexan jiray xaaskii waxay dareentay inuusan ninkani wax waqti ahba u helaynin waayo markii hore waxay ahaayeen dad xitaa xilliyada fasaxa dalxiisyadoodu u qorshaysan yihiin iskulana nolol aad u farxad badan waayo lamaanayaashu waxa ay u baahan yihiin xitaa in ay jawiga bedeshaan oo fasaxyada dalxiisaan intiiba waa ay ka weyday waxayna u soo bandhigtay inuu shaqadan iska daayo hase ahaatee wuu ka diiday ugu dambeynna waxay ka codsatay furiin wuuna ka aqbalay xiriirkoodii ma uusan go'in balse waxay ku heshiiyeen inay caruurtooda korsadaan nolol qurux badanna ku naaloodaan meherkeedii oo ahaa qadar lacageed oo dhan 2,000 oo lacagta Finland ah ayuu u keenay balse inta ay boqshad ku riday ayay ku qortay magaca Indhabuur walaalkiis oo ay ogeyd inuu yahay dan yar ku nool dalkii Soomaaliya waxay u sheegtay inuu ninkaasi uga baahi badan yahay iyada waxayna ka codsatay inuu lacagtaasi gaarsiiyo wiilkooda curad oo ah injineer ayaa dalkii Soomaaliya sanad walba aadi jiray waxayna reerkooda ugu sii dhiibi jirtay lacag sanad kasta oo uu safro waxay reerka Indhabuur markii uu qabay iyo markii uu furayba u noqotay lafdhabar mar walba garab taagan iyaga Indhabuur waxa uu guursaday gabar Soomaaliyeed gabadha Soomaaliyeed ahna waxay u dhashay ilmo mararka uu mashquulsan yahay ayuu ilmahaas waxa uu geyn jiray haweeneydii cadaanka ahayd ee uu furay iyaduna si ahsaan badan ayay ugu hayn jirtay ilaa ay inta uu uga soo laabanayo Indhabuur waxa kale oo go'aan ka gaaray inuusan guursan gabar dambe oo Soomaali ah isaga oo sheegay in maskaxdooda lala wadaago ayna fududahay in reerka buuq aan dhamaad lahayn laga dhex calooso wuxuu sheegay in uu soo maamulay dad shirkadiisa ka shaqaynayay oo dhan 2,000 oo qof kana soo jeeda dalal 48 dal oo adduunka kamid ah ka soo jeeda sidoo kalena ay ku jiraan dad horey gaangis u soo ahaan jiray oo rabsho badnaa waxaas oo dhan oo la isku daray ee aan soo maamulay waxa igala dhib badnaa gabadhii Soomaaliyeed ee aan muddada yar wada joognay maanta Indhabuur waa milyuneer waxa ay shirkadiisu ka mid tahay 10 shirkadood ee wadanka Finland ugu waaweyn inkastoo oo wadanka aad loogu cusuriyeeyay misana waxa uu ahaa qof mayal adag oo ay ka go'an tahay inuu hadafkiisa rumeeyo qiimo kasta ugu kacday shirkada Indhabuur waxayna baraysaa in hablaha reer Yurub ay yihiin kuwa ilbaxa oo ay muhiim u tahay shakhsiyadda ninka ay guursanayaan iyaga oo aan ku qiimeynaynin heerka uu nolosha ka joogo daawade ma isleedahay gabar Soomaaliyeed ayaa nin ay madax u tahay oo ay ka heer sareyso dhanka nolosha guursan lahayd mise waxay haamin lahayd qof iyada nolosha uga sareeya raayigaagu nagula wadaag qaybta hoose ee faallooyinka si aan muuqaalo badan oo noocan oo kale idinku soo sameeyo ha ila dhaafin subscribe like follow iyo share waa Cabdullaahi Cabdikariin Khaliif oo idin leh nabad galiyo salaam markasta